warqadahan aad aragto qof ayaa ii soo diray waa exam waaye ama imtixaan wuxuu rabo marka in MS Word loogu qoro kadib loo diro. Okay, warqadaha camal markii lagu soo diro waxaan ku tusi doonaa waddo fudud oo aad MS Word aad ugu diyaarin karto kadibna qofka aad u diri karto. Intaa mid kastaba intaa furto aad qori lahayd oo intaa warqadda fiiri haddana qor ay noqon lahayd sheekada waddo midda inay ka fududahay aan isleeyahay ayaan isla arkaynaa aan isla socono. Markood waxaan tegaynaa Google Chrome ka tegaynaa kadib halkaan ay ku qoran tahay search by image ayaan ku dhufanaynaa kadib upload aa leedahay warqadihii warqad ka mid aan rabaa inaan soo qaado. warqadihii waa kuwan waxaan rabaa marka warqad ka mid inaan soo qaado tusaale midaan aan soo qaado kadib open aan leeyahay then sida aragto warqad halkaan ay soo gashay okay kadib kligaa leedahay then waxaad dhahaysaa select all kaliya wuxuu kuu doori doonaa qoraalka keligiis ayuu kuu doori doonaa kadib waxaad leedahay copy aa ku dhufanaysaa then waxaa imaanaysaa MS Word markaas kadib waxaad dhahaysaa control V already qoraalkii warqadda ku qornaa waa kan halkaan uu kuu soo galay then kaliya intaa u baahan tahay ayaad tirtiraysaa oo macnaha intaa u baahan waa ka tiri kartaa kadibna halkaan dee qaabkii loo diyaarin lahaa iyo waxyaalihii laga bedeli lahaa environment-ga camal hadii la saxayo iyo tuwaaqaldiyan business oo kale iyo sidii markaasi loo bedelo waa taqaana marka waddadaas ayaa isleeyahay waddada ugu fudud waaye inkastoo AI ay jirto oo sawirka haddaad dirto qoraalka iga soo qaad adhahda kulli uu kuusoo diri karo laakiin haddana waddadan wadda aad u fudud waaye saan isleeyahay haddii aad ogtahay waddadan ka fudud commentiga noo soo qor aad aa umahadsantihiin sidoo kale waxaan isticmaalayaa YouTube oo 600 waxbuu marayaa haddii aad subscribe-ka aad qaaci ku siin karto waa okay way dhiirigelin ay noqonaysaa insha Allah waxyaalaha aan isleeyahay asxaabtu aad ay u caawin doonaan halkaan waa soo dhigi doonaa TikTok iyo sidoo kale YouTube-ka intaad nagu soo bir wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh